ilaahay ha u naxariistee waxaa aasqaran loogu sameeyey xabaalaha xeedhi ee magaalada hargeysa marxuum xildhibaan sheekh khaliif sheekh xasan gudaal oo ka mid ahaa xildhibaanada aqalka golaha guurtida somalilan oo habeenkii xalay ku geeriyooday gudaha caasimadda hargeysa madaxweynaha qaranka somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanya ayaa ka qayb galay aaskaasi qaran ee loo sameeyey marxuumka waxaana kala qayb galay oo ku wehelinayay gudoomiyaha golaha guurtida somalilan gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiyeen musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee ucid xubno ka tirsan golaha wasiirada somalilan xildhibaanada kala duwan ee golayaasha qaranka ee somalilan siyaasiyiin waxgarad waayeel aqoon-yahan qoyskii iyo eheladii uu ka baxay marxuumku iyo boqolaal ka mid ah shacabka somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanya ayaa shacabka somalilan qoyskii eheladii iyo golaha baarlamaanka ee uu ka baxay ka tacsiyeeyey إنا لله وإنا إليه راجعون شيخ خليفة الشيخ حسن إلهي نحرز جينها كوراب شو شخص وين بوها دالكن يدالكن كبحي إلهي وحنو كبر إنه نحرز جينها إلهي كوراب شو سمري إيمان أهل كيسية نقبل كل قبائل كورسيو نحرز جينها إلهي كوراب شو سمري إيمان الله نكسيو gudoomiyaha golaha guurtida somalilan gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi kulmiye musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee ucid xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano ka mid ah golayaasha qaranka waxgarad waayeel aqoon-yahan siyaasiyiin iyo waxgarad kala duwan oo dhammaantoodba halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka warrameen doorkii muhiimka ahaa ee xildhibaanku uu kaga jiray horumarka kala duwan ee qaranka somalilan uu sameeyey ilaahay raxmadiisii ha siiyo nin wuxuu ahaa nin qaran nin weyn oo qaran buu ahaa halgan buu lahaa adeeg bulsho iyo mid siyaasadeed iyo mid dhismaba wuu lahaa waxaan filayaa intii uu shaqaystay baa ku filan ducadeenna waynu ku duldaraynaa uun runtii intii uu geystay ummadda iyo dadka baa ku filan ilaahay qabriga ha u nuuro ha u waasiciyo ilaahay ha u nuuro ilaahay eheladiisii iyo qaraabadiisiiba sabir iyo iimaana ka siiyo inagana gidiga wuu inaga dhintay ilaahay ha u naxariisto sheekh khaliifa wuxuu ka bilaabay aqoonta herer oo ummadaha isagoo dhowritoojira tegey dabeetana uu 20 sano dheeraad ku maqnaa uu fanniga cilmiga islaamka ah oo dhan intooda badan ka soo bartay nooc kasta ay tahay dabeetana wuxuu noqday culimada waaweyn ee dalkayga Soomaalida wax ka dhiga tafsiir ka akhriya dad badan wax bara halka wuxuu ka soo hadana bilaabay ilaa xisbiyadii SNL iyo NUF waqtigoodii halgankii culimadii waaweyneyd ee ka soo hawlgashay uu ahaa 1983 wuxuu ahaa odayaashii iyo waxgaradkii loo diray mingista Hayla Maryan markii SNMta wadahadaladu riila galay ilaa maalintaana wuxuu ahaa guurti ilaa maalintaas 83 laga bilaabo ilaa maalinka uu geeriyooday shir la qabanqaabiyo qaranka wax loogu qabanayay meel kasta ka dhacay Sheekh Khaliif ka maqnaa ma jirin dib u heshiisiin uu ka maqnaana ma jirin ilaa 2 sano u dambeeyay oo dhul yar ahaa mooyaane sheekha ilaahay wuxuu u siiyay dhowr awoodood ayuu lahaa mid waxa ay aftahanimada midna waxay ahayd aqoonta cilmiga labadaas sheekhu wuxuu had iyo jeer kaga qayb gali jiray marka la wada hadalka galaya dadka sida loo nabadsiiyo arinta la negotiationka ama dadka dhexdhexaadintooda ama khilaaf xalinta ayuu u lahaa mawhibo gaar ah maanta halka waxa ka dhacday geeri xaq ah sheekh khaliif wuxuu ahaa asaasayaashii Somaliland iyo golaha guurtida ee Somaliland nin weyn baa ka baxay qaranka Somaliland waxaan leeyahay samri iimaan dhamaan shacabka Somaliland qoyskiisa qaraabadiisa iyo ehelkiisa waxaan leeyahay samri iimaan ilaahay naxariis jannada sheekh khaliif sheekh xasan gudaal geeridu waa xaq adoomo ilaahay baynu nahay waynu kala horeynaynaa maalinba mid inaga mid un baynu xabaalkeenaynaa kaga tegaynaa oo wax ilaahay qoray walaalkeen marxuum sheekh khaliif sheekh xasan oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha guurtiga oo ahaa raggii sidii gudoomiyaha xisbigu sheegay qarankan dhidibada u taagay
guddoomiyuhu waa iga badiyaado ilaa iyo wuxuu ka soo bilaabay markuu herir tegey aniguse intii aan xasuusta ilaa iyo caydaroosh baan si fiican u garanayaa intii raggii guurtiga somalilan seeska u dhigay buu ahaa isaga iyo sheekh ibraahim suldaan cabdi waxaan leeyahay xaaji cabdi waraabe raggaas farkutiriska isaga iyo xaaji cabdi waraabe maanta ka nool yihiin iyo maxamed axmed ayay ka mid ahaayeen ayuu ka mid ahaa waxaan ka tacsiyeynaa geerida sheekh khaliif sheekh xasan qaranka somalilan halye weyn oo ka baxay buu ahaa haldoorka ugu waaweyn buu ahaa waxaanu ka tacsiyeynaynaa qoyskii iyo qaraabadii gaar ahaan uu ka baxay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno siiyo ilaahay samiriye iimaan naga siiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisiiba isagana naxariistii janno ilaahay ha siiyo ayaan leeyahay wuxuu ahaa halgamaa weyn aad iyo aad runtii u soo halgamay ayuu ahaa wakhtigii boorama laga yimid ilaa iyo wakhtigii cabdiroosh intaa u dhaxaysa ilaa maanta ayaanu isnaqaanay aniga waxaa la odhan jiray guddiyada uu ku jiro ayaa had iyo jeer si wanaagsan loo xusi jiray ergada ilaahay haynaga aqbalo ergada ilaahay haynaga aqbalo addoon wanaagsan buu ahaa nin caalimo buu ahaa nimaan dhib lahayna dheefla buu ahaa ilaahay awlaaddiisii khaas ahaan ha ka cawalo caam ahaanna soomaaliliin alla ha ka cawalo xukuumad ahaanna alla haynaga cawalo guursi ahaanna allaha naga cawalo ergadana alla haynaga aqbalo allaahuma salli calaa maxamed wuxuu ahaa nin ehludiina oo ehlu sharafa oo nabadu gala aan wax ka soo noqon dhammaanteed wixii shir aanu qabannay wixii nabad aanu qabannay wixii aanu meel tagnay wixii meel keliya oo ilaa adigu 30 meelood 40 meelood way isu raacnay qofka ruuxda badan buu ahaa qof aamin u ahaa qof kalsoon buu ahaa mutacallim buu ahaa aqoon buu ahaa sheekh khaliif sheekh xasan gudaal ilaahay naxariisana ka waraabiyo oday weyn buu ahaa oo guurtiya oo caalima oo aftahana aniga aftigay buu ahaa muddo badan baanan soo garanayaa mataqaanaa anigoo yar iyo anigoo weyn oo mataqaan dawladda ku jira baan wada shaqaynay ilaahay naxariisana ka waraabiyo allaha u naxariistee marxuum sheekh khaliif sheekh xasan gudaal waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada golaha guurtida somalilan ee ugu muddada dheeraa isagoo ku suntanaa miisaan weyna ku dhex lahaa bulshada reer somalilan waxaanu ka mid ahaa odayaashii waxgaradkii salka u dhigay nabadda iyo dowladnimada dalka ka jirta waxaanu howlfuliye ka ahaa dhammaan shirarkii nabadaynta beelaha wadadega somalilan waxaa kaloo uu kaalin muuqata oo lama ilaawana uu ka soo qaatay marxuumku halgankii dib u xoreynta dalka waxaanu ahaa sheekh caalimo oo ku xeel dheeraa diinta islaamka dadkana ugu adeega samaha iyo wadajirka